qowmiyadu markaynu fiirno xagga awood ahaan hadda markaynu iska rabno Soomaalida iyo qowmiyada Canfartu wax isku dhigmi kara ma waa wax aad uga tira yar tayahaan aad uga tayar qowmiyadaha Maxaare iyo Oromo iyo nimanka faraha badan ee Soomaaliya si jiidan karaan xataa ma way yaryihiin marka dadkii markii la soo barakacay xukuumaddu halkii ay uga jawaabi lahayd inay difaacdo ama ay deegaanadii degmooyinkii ay kula dirto waxay ka yar doorbideen bal maadaama dalku xaalad dagaal oo kale ku jiro TPLF dagaalkeedu socday inaan dagaal kale la isku furin gudaha marka wax badan iyagoo xeerinaya dadkii shacabka wax ku samirsiin la dhaho degmooyin cusub oo baa loo yar dhoobay marka degmooyinkii haddana way kaga daba yimaadeen degmooyinka imika dhuun yar oo kale dagaalku imika socdo dib looga riixay degmada dhuun yar waa kuwa imika la ansixiyay degmooyinka imika halkaas dagaal ka socda ugaasiyada deegaankeena marka la yar fiiriyo anigu ma garanayo deegaanada kale Soomaalidu sidaas oo kale inuu dhaqmaan waa ugaasiye yar siyaasiyan waa niman yar siyaasadda ku yar dawladda ku yar la yar niman yar siyaasiyiin aad moodid weey kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xog waran maantana waxaanu idinku qaada dhigaynaa ama idinku soo gudbinaynaa xogta dagaal culus oo maalmihii la soo dhaafay iyo maantaba ka socda galbeedka gobolka City kaasi oo horaan ay ugu soo duushay qowmiyadda Canfartu qabsadeen lagu laayay ciidamo badan oo shacabka deegaanka iyo ciidamada gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay go'aansatay inay ka jawaabto dacadtigii barakicintii iyo xasuuqii loo geystay shacabka ku nool galbeedka gobolka City jawaabtaasina iyadoo aan baraha bulshada lala wadaagin xogteeduna ay aad iyo aad u dahsoon tahay waxaan helaynaa xogo sheegaya in la qabtay dhul fara badan oo ay lahaayeen shacabka ku nool galbeedka gobolka City kaasi oo Canfartu ay horaan u qabsatay xilliye kala duwan ayay ku soo duushay Canfartu xasuuqday dadka ku nool gobolkaasi kana qabsatay dhulkoodii hadda laakiin warar kuwaasi ka duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in shacabkii oo diriraya wata mindiyo iyo nin walba wuxuu ku hubaysan yahay ay Canfartu iska dhiciyeen ciidankoodana garab socdaan wararkaasi waxa isha ku hayay inoo soo gudbinaya ila wadaagaya wariye Muxidiin Xarago Muxidiin soo dhaw waan dhawahay Cabdiraxmaan daawadayaasheenna waan salaamaya waxaad iga warantaa dagaal aan shacab baxsanayn u oolin baraha bulshada sidii dagaaladii hore ay u ooli jireen yaa ka socda galbeedka gobolka City waa run Cabdiraxmaan waxaan la soconay horta qowmiyadda Canfarta oo aynu jaar ahayn in ay muddooyinkii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay ay xasarad dagaal iyo waxyaabo daris xuma ay hayeen isla markaana ay dad shacab ku soo barakiciyeen dhulkoodina ay ka qaateen dad badan oo boqolaal gaadhayana oo maatiyan ay ku xasuuqeen oo iyagu dagaal iyo barakicintoona aan u diyaarsanayn maalmihii ugu dambeeyay la shalay iyo daraad iyo wixii ka horeeyay dadkii shacabka ahaa oo dabcan xamili waayay culeysyada gardarrada ay kaga imanaya qowmiyadda Canfarta iyo ciidamadooda oo in badan dulqaad badan muujinayay maamulka deegaanka laftiisa dulqaad badan muujinayay madaxweynaha iyo مسؤولين تكلا حكومة دي سكاتر سن يعيدن كبس يجود ويعلن درس ك مدام الدل وين اللي جودة ترسيني هاي سنة هاي قومية دين قومية سكرترا قومية كلا وجودش وحياب بدون حيرين waxay noqotay kuwa ugu dambeystii la xamil waayo oo ay cawamada Canfartu ay ka badbadiyeen dhul bay qabsadeen dhulkii iyagoo qabsaday oo aan iyaga hadana dagaal ugu qadmay hadana dagaal ay soo wadeen oo dabcan ay soo riixayeen oo dadka ay dagaalkii dadkii soo barakiciyeen hadana dib uga dab imanayeen meesha ku soo barakiciyeen oo line iyo dhac iyo waxyaabo badan ay ku hayeen oo taxaddi ah ciidamada deegaanka Soomaalida oo iyagu markii hore saan sheegayba wax badan aan dagaalka iyagu markaad awaamir buuxdaan loo siinay inay duulaan ku qaadaan ugu dambeyntii waxay noqotay in loo sheego dadkiina difaacda lagu dhaho dawladda federaalka lafteeda Canfarta waxa jirtay deegaano ay u xalaaleysay xukuumadihii middan ka horeeyay oo dukumeenti ay haysteen طبعا دولكي waxay ku qabsadeen qori afkii
iyadoo shacabkii uu degan yahay yaa shacabkii kacdoomay kacdoonkii shacabku kacdoomayna inay canfartii iyo xogo kale oo isbahaysanaya ay qabsadaan baa dhacday dowladda deegaanka Soomaalida xukuumadeeda way ka tanaasushay sida maxaan ku dhahay aynu ku arkayna ficiliyan degmooyin kalena u magacooday dadkii canfartu ku harimiya intaas maxay ka maqnaa hadii dhulka la ku haysatay shacabka maxaan ku dhahay awoodna ay ku qabsatay shacabka degan shacabkii maxaan ku dhahay Soomaaliyeed waxa ayba uga soo barakaceen dagaalka canfarta ay sii waday inta in ka badan Soomaalida waxa dhacday horta wax beedso wax beel bay dhashaa aadamaha malaha damaca iyo hungurweynidu iska raacsan yihiin baan filaya canfartu waa run oo xukuumadii tan ka horeysay dhul ay degmooyin ku wareejisay Karbaciisi iyo Cadayti iyo Canab saddexda degmo dadkeeda marka rabitaan dadweyne ma ugu biirina qasab ay ahayd oo systemkii TPLF ka talinayay iyo canfarta iyo ayagoo waxyaabo dana gaar laga watay bay ahaayeen Mustafa iyo maamulkiisu markay yimaadeen isla markiiba hadal bay ka keeneen inayna dhul Soomaaliyeed aan si sahlan lagu qaadanayn dadka shacabkaana marka dabayshiisa bedelka deegaanka ka dhacday iyo furfurnaantii wax ayuuna ka faa'iideysanay deegaanka naga rabnaa ay dhahan waa canfartii diidaan canfartu marka waxay dhahday waxaan ka jawaabaynaa qori afkii waan dadka ku caburinayna canfar iyo Soomaalidu dad isku dhaqan ma waa dad kala duwan dhulkoodu dhul kala xadaysan buu ahaa dhul ma garanaysaa imika la kala xadeynay ma dhul kala cayiman buu marka waxa dhan anagu deegaankanagii iyo dalkanagii sina ugama go'i karo marka diidma shacab bay qori afkii ku qabteen madaxweynahooda halkan yimid si colaada wax looga qabto Mustafa uu ku soo dhaweeyay garoonka caanaha loogu lusay duleedka Jigjiga xolaada in la soo afjaran oo dariska la ilaaliyana waxyaabihii lagu wada hadlay dabcan waa laakiin waxaad moodaa in maamulkooda iyo ciidankooda iyo shacabkooda intuba ay isku raacsan yihiin mowqifka in dad shacaba la barakiciyo dhul Soomaaliyeedna la boobo qowmiyadu markaaynu fiirno xagga awood ahaan hadda markaynu iska rabno Soomaalida iyo qowmiyada canfartu wax isku dhigmi kara ma waa wax aad uga tiro yar tayahaan aad uga tayar qowmiyadaha Maxaare iyo Oromo iyo nimanka faraha badan ee Soomaaliya si jiidan karaan xataa ma way yaryihiin marka dadkii markii la soo barakacay xukuumaddu halkii ay uga jawaabi lahayd inay difaacdo ama ay deegaanadii degmooyinkii ay kula dirto waxay ka yar doorbideen bal maadaama dalku xaalad dagaal oo kale ku jiro TPLF dagaalkeedu socday inaan dagaal kale la isku furin gudaha marka wax badan iyagoo xeerinaya dadkii shacabka wax ku samirsiin la dhaho degmooyin cusub oo baa loo yar dhoobay marka degmooyinkii haddana way kaga daba yimaadeen degmooyinka imika dhuun yar oo kale dagaalku imika socdo dib looga riixay degmada dhuun yar waa kuwa imika la ansixiyay degmooyinka imika halkaas dagaal ka socda dhuun yar oo ku hadda la ansixiyay dagaal ka socday hadda halkee maxaa dhul cusub oo magaciisa la garanaya oo laga qabsaday dagaalka horta imika socda canfarta horta dhibaxa weyn baa lagu dhuftay ciidamada deegaankana waxa la dhahay wixii gardarre idinka gardarraana hagelina wixii kala difaaca dadkiina iyo sharaftiina iyo cirdigiina ku difaacaysana waaba shay ay ogoshahay diinta islaamka qofku hadduu kugu yimaado meesha inaad iska difaacdo difaaca baa lagu dhaha marka degmada dhuun yar oo kuwii degmooyinkii la ansixiyay ka mid ah iyo madana oo isaguna degmada isaguna ka dambeeya waa meelaha dagaal ka socdaan marka tuulooyin yar oo beerta xaajiga meel ay dhahaan iyo meelo ka dambeeyo dan la helayo bay dagaalku uu ka socdaa marka dib baa loo riixay nimanka canfarta waa laga qabsaday dib baa looga qabsaday dhul badan baa laga qabsaday oo markii hore iyagu qabsadeen oo degmooyinkii hore u qabsadeen inta soo dhaafeen ay qabsadeen federaalka oo la maxaan ku dhahay qiyaasayay inay yani ayna dhexdhexaad ka ahayn wax talaaba iyo wax warka soo saaray dawladda federaalka lafteeda waxaad moodaa in dulqaadkii ka dhamaaday xukuumadda canfarta in la arkay ka badbadin fara badan waxaan la soconaa qowmiyadda canfartu markii xasuuqa shacabka Soomaalida ay ku hayeen dawladda federaalka iyo xataa kuwa Soomaalida u matala aadan faarax oo ka soo jeeda goboladan meeshan laynaya dadkeeda oo baarlamaankii golaha federationkana isagu joogo muuna hal mar ka hadal halku bedelkeeda dagaalka Tigrayga uu ka hadlayay marka xubnaha xataa Soomaalida ku matalaya iyo dawladda federaalka baarlamaanku mayna ka hadleen dadka shacabka la laynayo
kuwa matalayana mayna ka hadlayn ka kale dowladda federaalka ee dhexdeedna mayna ka hadlayn marka waxaad moodaa imika markii ay ka badbadiyeen in dowladda federaalka lafteedu ay aragto ay leedahay war iska celiya haddii aan intaas ku dhaafno dagaalka galbeedka city isla gobolkaas haddana ay shiica xaalad ba ka taagneed waa run xaashacana xaalad ba ka taagneed oo horta gobolkan deegaankeena markii la fiiriyo dhibaatada meel walba ka soo dhaxday xukuumadihii tan ku horeeyay iyo adigu dadka shacabka dulmi mar walba waa la daris dhibaatada ka taagan galbeedka city waxay saameysay in kacdoon shacab ay sameeyaan oo dad shacabi mar hadii dowladda federaalku ay ka hadlayaan dowladda deegaankuna طبعا ده كل وحياة بدن تستوري حيرنا يساوان في ليا لكن طلابين كده دتك شعبك سياسي يوقف كشعبك اسكو مد من نقول كراس كواركتي هذو ما يشهدو أركتو هنا قف كيسك عيني كرت قف سياسي وحلا جاي منو دنا كلا يسوونه ما يشكل ده حركة مركز دتك شعبك واحد يسلوجين طلابات الدولة فدرالك موقف كده كي قاعدين دجالك يا كان ديجان كسومالي ده مركز ما دامو قلبات كان مرور بدي يكون دادنا يا عيدا ما هو بيستنى أي دت شعب الله ينيان in dadka shacabka ay ka gadoodaan oo ay barnaamijyo sameeyaan barnaamijyaas markaa wuxuu saameeyay wadadii tareenka ahayd ee Djibouti xaggan isku xidhayeen ay xiraan ilaa caashacada beetana uu barnaamijyada ay gaaraan markaa dad shacab ah ay ciidamada militarigu bay la 3 qof iyo tiro dhaawacyo ka badan ba meesha khasaaro ka gaaray oo ilaa 3 qof meelaha dhimatay iyo tiro dhaawacyo inta ka badan oo ciidamadu ay laayeen dadka shacabka oo markii barnaamij sameeyay ay shiica maxaasad kala mise tan dagaalka oo bayadana la xiriirida xaaladda shacabku waxay ka kacdoomeen dagaalkan mise iyaga dib gaar ah haysta طبعا shacabka dagaalkan socdo buu qayb ka sii noqonaya laakiin iyaga laftooda dib haysto kuwa walaalahoodna waa la dareen dadkan shacabka galbeedka lagu leynayo iyaga laftooduna cadaalad darro ay ka tirsanayaan baa jirto dadkooda shacabkan ay la dareen yihiin markaa hadlay waaska beesha ciise oo deegaanada subaaskeeda wuxuuna ku dheeraaday ciidamada federaalka iyo dowladda Itoobiya siday dagaalkan qayb uga tahay maxaa xilliga ku soo aadiyay isagoo dagaalku uu socday intaas oo sano oo horaan u hadlay oo Cabdiraxmaan horta waa si wanaagsan ugaasiyada deegaankeena marka la yar fiiriyo anigu ma garanayo deegaanada kale Soomaalidu sidaas oo kale u dhaqmaan waa ugaasiyo yar siyaasiyan waa niman yar siyaasadda ku yar dawladda ku yar la yar niman yar siyaasiyiin aad moodid weey nimika odayaal inagu waan leenahay garaadaan leenahay suldamaan leenahay ka odayaal ahaan iyaga wax ka hadlaya ama wax diidaya lama arag waxa laga yaabaa fikir dawladda soo saartay ama talaabayn dawladda inay taadiidiyaan oo waxa iska jira laakiin ka doorkooda ahaan marka loo baahan yahay inta badan ma sheegaan arrintan waa la wada tuhmayay in ciidamada federaalku marar horena dadka shacabku way qabeen in ay xaggan iyo anfarta ay garab siinayaan oo dagaalku mararka qaar ku yahay Itoobiya inta kale iyo dad shacab oo Soomaalida ay yihiin dadku waa ay dareenka shacabku way qabeen marka ugaaska laftiisu arrintiisaas waa tuhno dadku ay qabeen laakiin waqtigan imika looma baahan waqtiyo badan oo kale baa looga baahnaa kaligiina ma aha in xataa xubnaha kale goboladan ka soo jeeda matala degmooyinkan ka soo jeeda inay hadlaan baa dawladda federaalku ku jiray kuwa deegaanka laftooda ku jiraba iyaga haysta madaxweyne ku xigeenkii bay leeyihiin imika deegaamadaas iyo ka soo baxa deegaanka federationkii u haystaan marka dadka mas'uuliyiinta ka soo jeeda inay mowqifkooda cadeeyaan bay ahayd Tigray waxaan la soconay imika dagaalku markuu socday mas'uuliyiintoodu hatta WHO-da kii haystay baa hadlayo laha warar $100 ehelkaygii maqala lagu gadoomiyo meel aan uga daraan garan lahaa marka mushaar inaad qaadato oo aad uga tanaasusho cirdiga dadkaaga oo la laynayo oo mushaarkaaga si nacasnimo isaga cunto waa arrin fool xun marka xaq gardarra iyo dulmi labadaba dadkaaga haduu laga dulman yahayna inaad u heeliso waa shay diintu ogashahay haddii laga dulmay oo isagu dulmi wadan inaad daado warda dulmiga naga daayo ma fiicno ilaahay ma jecleh bawey buu mahadsan yahay muxiidiin xarabo daawadayaal galbeedka gobolka City sanadii sheegnay dagaalka ka socda la wadaag wixii xog faahfaahin dheeraad aad ka heshaan si aan idinku soo gudbino taniyada barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doonana waxaan idin kala tageynaa nabadgelyo